kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Ogaal TV kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada warka ayaan maanta idin heynana waxaa ka mid noqonaya ajandaha ra'iisul wasaare Roble ugu duulay dalka Imaaraadka, xog ku saabsan safarka ra'iisul wasaaraha ee Imaaraadka Carabta, maxkamadda gobolka Banaadir oo go'aano culus ka soo saartay lacagta Imaaraadka Carabta ee ku xaniban magaalada Muqdisho, xildhibaanadii ugu dambeeyay ee kuraastooda taalo Baydhabo oo maanta la doortay, taliyaal ciidan oo loo magacaabay amniga goobta doorashada golaha shacabka ee Jowhara, shir xukuumadda Soomaaliya ka furtay Garowe xilli Dani uu ka maqan yahay Puntland, Saciid Cabdullaahi Dani oo kulamo ka wada magaalada Nairobi, maxaa ka jira kambeynka Dani ka bilaabay magaalada Nairobi. Qodobada dibadda idin heynana waxaa ka mid noqonaya intee marayaan wadahadallada u socda dowladda Abiy Ahmed iyo TPLF. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan goordhow, balse marka hore daawade isku dayna subscribe noo saarto, sidoo kalena like iyo follow aad tiraahdo barteena Facebook iyo Ogaal TV. aan ku bilaabe ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa goor dhaweyd u kicitimay dalka Imaaraadka, halkaasi oo ku tagayo booqasho tii ugu horeysay ee uu ra'iisul wasaare Soomaaliyeed sameeyo 4 sano ee la soo dhaafay. safarkan Roble ayaa ku soo aadaya iyadoo uu aad u xumaa xiriirka labada dal tan iyo Abriil 2018, halkaasi oo Muqdisho ay la wareegtay 9.6 milyan oo ay leedahay Abu Dhabi, taasi oo uu ra'iisul wasaare Roble naftiisu raaligelin ka bixiyay. waxaa kale oo hadda isbedelay xiisadii gobolka Khaliijka iyadoo ay heshiis gaareen Qatar iyo dalal kale oo Imaaraadka ku jiro. waxaa kale oo xusid mudan in Sacuudiga oo xulafo la ah Imaaraadka uu safiir u soo diray Muqdisho. arrimahaasi oo lagu daro doorashada xilligan ka socota dalkeena ayaa xiisad gaar ah u yeelaysa booqashadana. haddaba waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa 7 qodob oo ay ka tahay in Roble uu kala hadlo Abu Dhabi. 1. fududeynta ganacsiga iyo fiisaha. 4 sano ee tagay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa culays kala kulmaya Imaaraadka oo marin muhiim u ah ganacsatada. fiisayaasha iyo tashiilaadkii kale ayaa meesha ka baxay oo adkaaday, waxaana la joogaa in Roble uu safarkan uga faa'iideysto arrintaasi, kalena hadlo madaxda dalkaasi sidii Imaaraadka ay albaabka ugu furi lahaayeen ganacsatada Soomaaliyeed. 2. fududeynta ganacsiga. Soomaaliya waxa ay Imaaraadku u dhoofin jirtay xoolo, dahab iyo alaabo kale oo qiimo badan oo ku kacaya ilaa 200 milyan oo dollar sanadkii. Roble waa inuu safarkani kala hadlo Imaaraadka sidii ganacsiga Soomaaliyeed ay suuqyo cusub ugu heli lahaayeen Imaaraadka. tababarka ciidamada. Imaaraadku waxay joojiyeen tababarka ay siin jireen ciidamada ku sugan Banaadir, iyaga oo horey u tababaray ciidamo ka badan 2407 askari oo lagu daray ilaa iyo 2000 oo Puntland ah una bixin jiray waliba mushaaraadkooda. waxaana intaasi dheer in ay fureen 3 xarumood oo tababara. Roble waa inuu kala hadlo soo celinta adeegaasi. 4. taageerada caafimaad. Imaaraadku waxay xireen Abriil 16, 2018 cisbitaalka Sheikh Zayed ee Muqdisho. waxaa si lacag la'aan ah maalin walba loogu daweyn jiray 200 ilaa 300 oo ruux ah, waxaana ka howlgali jiray 40 qof oo Soomaali ah. 14 ka mid ah ay ahaayeen dhakhaatiir leh takhasusaad kala duwan. Roble waa inuu kala hadlo Imaaraadka soo celinta howlahaasi muhiimka u ahaa dadka. kabka miisaaniyadda. Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay qayb ka ahaayeen dalalka kabo miisaaniyadda Soomaaliya, iyaga oo sidoo kale taageeri jiray dhismaha maamulada. Roble waa in safarkani uga faa'iideystaa soo celinta kabka miisaaniyadda, gaar ahaan sanadkani oo doorasho ay socoto. 6. wax ka qabashada abaaraha. Imaaraadka waxay xilligan Soomaaliya ka taageeri kartaa wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyada oo 7 milyan ay dhibaato hayso, waxaana muhiim ah in Roble uu arrinkaasi kala hadlo Abu Dhabi. 7. maalgashi. Imaaraadku waxay maalgashi ku sameeyaan maamulada sida Somaliland iyo Puntland, iyada oo casriyeynaysa dekedda Berbera oo ku bixisay 442 milyan muddo 30 sano ah, halka 30 sano kale ay dekedda Boosaaso ku bixinaysay 336 milyan. waxaa la joogaa in Roble uu Imaaraadka kala hadlo in Imaaraadka sida Turkiga oo kale ay toos u yimaadaan Muqdisho, taasi oo albaabka u furi karta dalal kale oo Khaliij ah. ugu dambeyntii, Roble waa inuu mas'uuliyad iska saaro in Imaaraadka uu kala hadlo sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka argixisada, joojinta dhoofka dhuxusha, ilaalinta madax banaanida Soomaaliya iyo arrimo kale. dhinaca kalena maxkamadda gobolka Banaadir ayaa soo saartay amar culus oo lagu hakinayo bixinta lacagta Imaaraadka ee uu horey u sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in lagu wareejinayo xukuumadda Abu Dhabi kadib raaligelin uu siiyay. warqad ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir isla markaana lagu soo aadiyay safarka Roble
uu ku aaday imaaraadka carabta ayaa waxaa lagu faray guddoomiyaha bangiga dhexe iyo wasiirka maaliyadda in lacagtaasi aan laga bixin karin qasnada dowladda. sidoo kale maxkamadda ayaa sheegtay in weli ay socoto baaris lagu hayo lacagtani islamarkaana aan laga saari karin bangiga dhexe ilaa inta laga gaarayo go-aanka u dambeeya. sidaa daraaddeed lacagtaasi lama saari karo qasnada dowladda ilaa laga soo dhammaynayo baaritaanka iyo go-aanka gaarista kiiska lacagtaasi ee horyaalla xafiiska xeer ilaaliyaha iyo hay-adaha baarista, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maxkamadda. maxkamadda ayaa shaaca ka qaaday in lacagtaasi oo dhan 9,600,000 inay si sharci darro ah kusoo gashay dalka islamarkaana ay weli hortaalo xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka. amarka maxkamadda gobolka Banaadir ayaa kusoo aadaya xilli xasaasi ah islamarkaana ra-iisul wasaare Roble uu ambabaxay dalka isu tagga imaaraadka carabta kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay isaga oo la kulmi doona madaxda sare ee dalkaasi. horey madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u soo saaray wareegto ka dhan ah tallaabada ra-iisul wasaaraha, wuxuuna amar ku bixiyey in lacagtaasi aan laga saari karin bangiga dhexe, isaga oo sheegay in go-aanka Roble uu yahay mid uu gaaray hal nina, sidaas daraaddeedna aan lagu bixin karin lacagtaasi oo la qabtay bishii Abriil ee sanadkii 2018 xilli laga soo dejiyey garoonka aadan cadde. dhinaca kalena magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa maanta oo Axad ah waxaa ka dhacday doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka, kuwaasi oo ay deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed. doorashada kursiga tirsigiisu yahay Hob 175 ayaa waxaa ku tartamay 2 musharax oo kala ah Dr. Cabdirashiid Maxamed Nuur Jilaya iyo Aadan Maxamed Ibraahim, waxaana doorashada kursigaasi ku guuleystay Cabdirashiid Maxamed oo helay 70 cod. kursiga labaad ee doorashadiisu ka dhacday Baydhabo ayaa waxa uu tirsigiisu yahay Hob 185 oo ay ku tartameen Maxamed Barre Maxamuud iyo Cabdullaahi Maxamed Isaaqa, iyadoona uu kursigaasi ku soo baxay Maxamed Barre oo ah wiil dhalinyaro ah oo helay 71 cod. doorashada kursiga tirsigiisu yahay Hob 185 ayaa loo doortay oo ku guuleystay Cabdiraxmaan Isaaq Maxamed oo helay codad gaaraya 71 cod, islamarkaana waxaa doorashada ku tartamay Maxamed Nuur Maxamed. sidoo kale Maxamed Cabdi Maxamed ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay Hob 188, islamarkaana waxa uu helay codad gaaraya 73 cod, waxaana doorashada kula tartamay musharax lagu magacaabo Cabdisamed Aadan Isaaqa. doorashada kursiga ugu dambeeya ee doorashadiisu maanta ka dhacday Baydhabo oo tirsigiisu yahay Hob 177 ayaa waxaa ku tartamay Cabdulqaadir Sheekh Cali Baraka iyo Maxamuud Abuukar Khayr, iyadoona uu ku soo baxay Cabdulqaadir Sheekh oo helay 75 cod. guddiga doorashada Koonfur Galbeed ayaa maanta oo Axad ah soo gabagabeeyay doorashada kuraasta golaha shacabka ee taala magaalada Baydhabo, waxaana wixii maanta ka dambeeya la guda gali doonaa doorashada kuraasta taala magaalada Baraawe ee caasimadda maamulkaasi. dhinaca kalena taliyaha booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ahna taliyaha amniga doorashada gaashaanle sare Xasan Dhicisow Xasan ayaa magacaabay taliyaasha amniga goobaha doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee magaalada Jowhar. wareegto uu soo saaray taliya Xasan Dhicisow ayaa waxa uu taliyaha ciidanka sugaya amniga goobta ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka ee Jowhar u magacaabay Mukhtaar Cabdulle Nuur iyo taliya laba xidigle Muuse Salaad Wehliye. taliyaha booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ahna taliyaha amniga doorashada gaashaanle sare Xasan Dhicisow Xasan ayaa faray saraakiisha la magacaabay inay gutaan waajibkooda shaqo ee loo idmaday. magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta berito ah oo Isniin ah ay ka bilaabato doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kalena magaalada Garowe maanta waxaa ka furmay shirweynaha koowaad ee cilmi baarista caafimaadka guud ee qaranka, kaasi oo ay soo qaban qaabiyeen Machadka Caafimaadka Qaranka Soomaaliyeed ee NIH. shirkani oo muddo 3 cisho ah socon doona ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa dejinta aasaaska cilmi baarista caafimaadka Soomaaliyeed oo ay soo qaban qaabisay Machadka Caafimaadka Qaranka Soomaaliyeed. wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur oo shirka ka hadashay ayaa ku dheeraatay muhiimadda ay cilmi baaristani u leedahay horumarinta caafimaadka dalka, iyadoona codsatay in jaamacadaha iyo hay-adaha diiradda saaraan islamarkaana dhaqaalo gaar ah ugu talagalaan xoojinta cilmi baarista ku aadan caafimaadka. shirkani ayaa waxaa ka qayb galay marti ka mid ah dhammaan qaybaha dalka iyo dibaddiisaba, kuwaasi oo uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur. dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Puntland oo shalay ka ambabaxay magaalada Garowe ayaa xalay gaaray magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya, halkaasi oo uu ka bilaabay kulamo kala duwan oo uu la yeelanayo mas'uuliyiin ka tirsan dalkaasi.
wararka la helaya ayaa sheegaya in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani uu Nairobi kula kulmi doono madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo xubno kale oo ka tirsan wakiilada beesha caalamka oo ku sugan magaaladaasi. madaxweynaha Puntland ayaa la tilmaamayaa inuu mas'uuliyiinta dowladda Kenya ee uu la kulmayo kala hadli doono arrimo kala duwan oo ku aadan doorashooyinka ka socda dalka Soomaaliya iyo qodobo kale oo qorsheysan. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in Dani inta uu joogo magaalada Nairobi ay halkaasi isku arki doonaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoowe oo isna ku sii jeeda Kenya. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland Siciid Dani iyo Axmed Madoowe ayaa isbahaysi siyaasadeed oo 4 sano ee la soo dhaafay ku wajahayeen madaxweynaha mudxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ugu dambeyntiina kooxda TPLF oo muddada sanadka ka badan dagaalka kula jirtay dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in dadaalada diblomaasiyadda horumar laga gaaray. hogaamiyaha TPLF ayaa sheegay inay jiraan wadahadallo aan toos ahayn oo ay la leeyihiin xukuumadda Addis Ababa, isagoona tilmaamay in talaabadaasi ay dhalisay in labada dhinac ay isu soo dhawaadaan. waxaan rabnaa in xal nabadeed lagu dhameeyo, balse haddii loo baahdo waan sii wadi doonaa dagaalka si aan u ilaalino xuquuqda shacabka Tigray, ayuu yiri hogaamiyaha. Ra'iisul Wasaare Abiy ayaa muddooyinkii dambe u muuqda inuu raadinayo xal aan xabad ahayn in laga gaaro colaadda Tigrayga. waxa uu xabsiyada ka sii daayay maxaabiis, waxaana uu meesha ka saaray xaaladda degdega ah ee uu dalka ku soo rogay. muranka dhuleed ee ka dhaxeeya Amxaarada iyo Tigrayga iyo waliba qorshaha madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki ee ka dhanka ah TPLF ayaa la filayaa inay adkeeyaan wadahadallada labada dhinac. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad kala socoteen Ogaal TV waa naga inta. mar kale ayaan idinka codsanaynaa subscribe noo saartaan, sidoo kalena like iyo follow aad tirahdaan barteena Facebook ee Ogaal TV si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. inta aynu dib ugu kulmi doono warkan warka xiga, waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaan Allah.